munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa maanta ka dhacday magaalada Mandheera taasoo si rasmi ah loogu aqoonsanayay garoonka Sheekdaha zone gaar ah oo ku soo biiraya zoonka Mandheera. Xafladda waxaa ka soo qayb galay dhammaan mas'uuliyiintii ka socday FKF, guddoomiyaasha zoonalada kala duwan ee Mandheera, ayadoo goobta ay ka muuqatay farxad iyo reyn fara badan. Intii lagu guda jiray munaasabadda waxaa la doortay hoggaan cusub oo la caleema saaray kuwaasi oo maamuli doona zoonalka cusub ee Sheekdaha. Chairman ama gudoomiye waxaa loo doortay Siyaad Bishaar, sidoo kale Vice Chairman ama gudoomiye ku-xigeen waxaa loo doortay Axmed Sheekh Cabdi oo loo yaqaan Turji, sidoo kale Secretary ama xoghaye waxaa loo doortay Cabdixakiim Maxamed oo loo yaqaan Alonso, sidoo kale Vice Chairman ama xoghaye ku-xigeen waxaa loo doortay Cabdinaasir Maxamed oo loo yaqaan Di Maria, Tresha ama qasnijiye ama lacag haye waxaad u taqaanid waxaa loo doortay Maxamed Macalim oo loo garan og yahay Roben, sidoo kale Vice Treasurer ama qasniji ku-xigeen waxaa loo doortay Daawud Cabdi Maxamed. Madaxa garsoorayaasha waxaa loo doortay Zakariya. Waxaa goobta sidoo kale ku madaysanaa kooxaha kubadda cagta ee ka ciyaara garoonka Sheekdaha kuwaasoo si diiran u soo dhaweeyay aqoonsiga cusub. Marti sharaftii kala duwan iyo hogaamiyaashii kubadda cagta Mandheera ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyay maamulka cusub, ayagoo sheegay in zoonalka cusub ee Sheekdaha uu kaalin muuqata ka qaadan doono horumarinta ciyaaraha ismaamulka Mandheera. Anako FKF branch Mandheera County branch maanta oo taariikhda ay tahay taariikh 11 August 2025 on joogna Mandheera Grills 7-a-side football complex waxaan meeshan ku garant gareynaynaa Sheekdaha inay maartay hadda ay noqdaan Sheekdaha Football Association ama Sheekdaha Zone ayaan from today aan aqoonsanaynaa. Mandheera East sub county waxay qabaysaa 8 zones ay qabaysaa wixii maanta ka bilowday. Marka Sheekdaha wixii hadda ka bilowda Sheekdaha Zone wax loo aqoonsan doonaa ilaa 6 team oo chairmanka haddaas igu soo gudbiyay. All these 6 teams will be part of the Sheekdaha Zone. Teamta cusub haday soo baxaan FKF waxay ku dari kartaa inay zone ay ka mid ahaadaan ay ku dari kartaa. So lixdan team kale hadda way yihiin, laakiin waxa laga yaabaa in the next 2-3 years new teams are soo dari kartaa. Sheekdaha Zone wali FKF way ku soo dari kartaa. Macnaheedu ma lixdan team ay ku xirnaanaysaa ogaada. Waa baabku waa xirmi ma. FKF ay awood u leh team kasta meesha lagu daray iyo zonka lagu daray iyo grouping si loo hagaajinayo. Laakiin from today oo hadda vice chairman ka as joogin, vice chairman kana waxaan filaa Axmed Turji as yahay, waxaan rabaa inaan maartaan branch sa u nahnay aan ku wareejino inay yihiin zone ay yihiin leeta FKF kii maadana way soo bixi doontaa oo chairman inuu joogay laakiin vice chairman ka ay hadda aan la wadaagayna. Waxaan u aqoonsanahay Sheekdaha Zone inay zone yihiin from now onwards. Officially Sheekdaha Zone ama Sheekdaha Football Association waa la launch gareeyay. Mandheera waxay qabtaa 8 zones. aad iyo aadan maaragtay waxa way aad u mahadsantiin inaad maaragtay waxa way aad ii yeerteen fadhigan oo quruxda badan aad igu yeerteen. waxaan ku faraxsanahay youth kayna ambiirta wejigooda aad u qurux badan haddii laga bixiyo very few elements oo madaxooda aan la fiirin karin waa jiraan, laakiin waxaan u jeedaa maaragtay youth oo la tarbiyeeyay aad iyo aad maaragtay tarbiye fiican oo ku socota ayaan u jeedaa. maxaa yeelay sports haddii macnaha waxa waaye la dhaca wax badan faa'iidooyin fara badan ayay leedahay sports. kow jirkaada ayaa dhisma, 2 caafimaad ayaad helaysaa, 3 waxyaalaha maaragtay waxa waaye dhalinyarta ay ku mashquuli lahaayeen oo anshax xumida oo maaragtay waxa waaye nabadgelyada dhibaaya ayaa maaragtay ayaa haraysa. arrimahaas iyo arrimo la mid oo dhan odayaasha iyo officialka ka soo shaqeeyeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. waxaan leeyahay zoonka cusub oo soo kordhay oo garoonka Sheekdaha Zone lagu magacaabay insha Allah taala zoonkaas ama garoonkaas waqti badan buu sugayay xaq uu lahaa
ilaahayna wuxuu u qadaray maanta inay fursaddaa helaan waa nasiib darro aad u weyn waxaan aad ugu xumahay garoonkaas loogu magac daray zoonka wuxuu la fac yahay garoonka Boystam wuxuu la fac yahay garoonka Janeefa wuxuu la fac yahay garoonka Bulaimpia barwaaqo garoomada kala township ayuu la fac yahay sababta uu uga dambeeyay maanta loogu magacaabay inuu zoon noqdo taas nafteedaaba waxay tahay ani aan dhihi karaa waxaanan sax ahayn Waad kamera dheelaseen. I think nyinyi mwenyewe mko hapa na mnajijua. Na waxaa kale oo rabaa inaan idiin sheego in zone ma kala dhaho horta waa in kala dambeyn la dhahaa la ka jirtaa mostly markii neewoy zone ay ka tirsanaayeen shaqadaha xuguf yar badan way jirtay aan maleena because almost 20 teams hal qof inuu manage gareeyo oo haddana kala meel ka imaada oo haddana zone la isku dhahaa at least waxa way noqonaysaa culus zaid ay u noqonaysaa hadda maadaama ay your own chairman haysataan your own officials haysataan waxaan rabaa inaad ka dambeystaan dadkaas officialska sharciga garoonka u yeela in la qaata waa arrin laga maarmaan ah arrin zaid ugu muhiimsan way So otherwise nimeshukuru sana, tumefurahia kama sisi all zonal chairmans. Tunataka tushikane mkono ndio tutoe siasa hii Mandera tumalize kama sisi zonal chairmans, na ile vile leo tumekaribishwa hapo na hii mandugu zetu, tunataka tuungane tukiwe saba. Sisi tulikuwa saba kitambo, tukae hiyo saba tushikane, sisi tunaweza fanya, lakini mkono mmoja haiwezi fanya kazi, lakini tukishikana tulete kila mtu alete maoni yake, tunaweza enda mbali. Asanteni sana, nimeshukuru. So tumefurahia vile mmetukaribisha, na nyinyi mko tayari mkuje Janefa, hata mkitaka kuchuza hata asubuhi niko tayari. So asanteni sana, mkuje, sina mambo mengi, asanteni sana. Ambirta maqaarkan waa mid lagu madoobi lahay ay noqonin siyaasad la soo gelin ambir maqaarkan dadkan dhalinyarada dadkan kulli wax iska isku xaafadka ma soo bixin kalma meel ay ka imaadeen kala zone wax isku keenkeen waa wiji iyo walaalnimo ay noqonin dadan wiligood ambir aan dheelin hatta football macnaheed aan ka saynin dadka inay kala jibiyaan ay noqonin please zonal chairmans maxay go'aan ku gaareen Mandera inay mideeyaan ay si fiican u fadhiisteen waan tashan mideyntaasna way dhici doontaa khalaafaan socdaana way dhici way istaagi doonaan insha Allah markaan maxaan dhihi lahay waa maasantiin sida sharaftana noo qabisheen waa maasantiin. One is unity. Dadkan isku keen dad quuqla ku jira kuna teams inaweza kuambia ni maquuqla hapa. There are some teams who are polite, so try to bring these guys together. Taade xafladda waa soo ajiibnay sheekadaha zone, we are proud of you. Axmed Sheekh Cabdi Liibaan oo loo doortay gudoomiye ku-xigeenka isla markaana matalaya gudoomiyaha cusub ee maanta la doortay ayaa ka hadlay xafladda wuxuuna si gaar ah uga hadlay bogga cusub ee maanta u furmay ciyaaraha Mandera isagoona ku booriyay dhammaan kooxaha iyo taageerayaasha inay ka shaqeeyaan horumarinta midnimada ciyaaraha wuxuuna sidoo kale sheegay in zoonka sheekadaha uu noqon doona mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee Mandera lagu daydo sheekadaha saan u nahay kulay akhyaar badan na waa ila joogaan oo howlahaas ila wadaan nasiib wanaag horta maanta sidii la kugu sheegay hore chairmanka waa naga maqan yahay siyaad saad u garanaysaan gabadhana xoogaa ka cunuga ka yar xanuunsaday isbitaal wax uu qaaday laga yaabo meel Kenya ka sii baxsan inuu sii qaadana ay suurtagal tahay insha Allah Ilaahay baan baryaynaa inuu Ilaahay caafiyo ninka asaga maadaama naga maqan yahay annaga sii joogno marka hawsha sii wada hayna asagana waa nagu kaban yahay insha Allah mid kale waxaan idin sheegaa annaga haddaan nahay sheekadaha waad ku mahadsan tihiin sida maanta aad nooga ogolaateen inaad nagala soo qayb gashaan shaqada ideed aad ma garanaysaa aad ka markaati noqotaan aad baan kugu mahad celinaynaa laakiin waxaan idin sheegaynaa inaan xaqiijinaynaa inaan ka shaqayn doono dhalinyaradan iyo kuwa magaalada dhammaan cadaaladda inaan ka shaqayn doono haddii la yidhaah waxaan ka shaqayn doonaa ayaga dhexdooda inaan cadaalad ka shaqayno inaan ayaga isu keenno wanaag iyo weji wanaag iyo xiriir fiican ay dhexdooda yeeshaan insha Allah.